magacaygu waa Firdaws Daahir Aadan isla markaana ah xirfadle caafimaad kana shaqeysa horumarinta quruxda dabiiciga ee maqaarka xarunta Derma waxa laga wadaa in laga shaqeeyo health and wellness ka maqaarka inuu maqaarkaasi ahaado maqaar caafimaad qaba isla markaana isku dheelitiran hawshan inaad doorto waxaan ku doortay baahida igu kaliftay aniga ii gaar ahayd runtii aniga anoo yar baan waxa bilaabay inaan isqurxiyo waxyaabaha maaragtay la isku qurxiyo ama la isku cadeeyo inaan bilaabo at the same time na aan maaragtay xoog u isticmaalo waliba waxaan noqday qof resistant ah oo dhibaato badan kala kulmay oo saaniyeela aqoon way xataa intana uma socdi oo quruxdaydii hore uma socoto oo way idiiday like 3 years kadib 3 sano bas marka isticmaalay dawadii way idiiday dadku saas ay yiraahdaan waqtiga waxaan ugu gudiday bad iska daysid dawadii ay isii qurxisa way diiday meel aan u noqdana ma haysto hadaan joojiyay waxaan noqday qof qayiran oo qaab daran hadaan dawadii marsadana qof cas oo milil iyo guduud iyo foolxumo ah marka ilaahay khayr ha siiyo dhakhtar nala shaqeyn jiray oo dermatology ah baa maaragtay imaaday dhakhtarkii baa waxa dhacday inaan Skype gareeyo oo ka dhudhunto because asaga mukayfku aad isticmaala anina mukayfkaab idhibayo isku darajaba ma nihin banaanka marka uu soo baxana hunufka iyo kulaylka cadceeda idhibaysay marka waa iska dhibana jabkaygana waan qarsanay because anaa mas'uulka ah moogtahay marka dhakhtarkii baan la tashtay ma sha Allah markii adiga oo 1 week kadib oo dhahay way amar walba iska dhigsanay maaskar maxaa u xiran tahay maxaa dhacay san ku raanto xasaasiyada qaba xasaasiyad ma qabtid indhaadayga inta iska deysid waxaad cuntay ee ku sumowda sheeg haday ama waxaad cuntay aysan jirinna waxaad marsatad ku sumowda sheeg buudha marka indhaadaygaygi waxaan rabay stiil inaan maaragtay boorka iska qaado dhaahdo aan madaxa ciida ka ceshto moogtaa dhaahdo waxaas ma jiraan waxaas xasaasiyada ku ah inta xasaasiyad baasul fiiri aniga wuxuu waxaad jirkaaga iiga muuqdo iyo waxaad ka sheekeynaysid waa kaafiya kala dheeri waxa jirkaaga iiga muuqdo inaad sumaysan tahay oo aad qafiif u noqday oo somehow aad adigu gacantaada wax ugu yeeratay marka wuxuu dhahay isdaji tartiib joogaaga dagso aan dhakhtar ah waxba ka mahaleynay waxaad samaysaa aan runta ka wada hadalno adaa bukaanada kale waxaad u taraysid baa iska yare bal horta aan wada hadalno markaas aan xoogaa jooga waa dajiyay waxaan ka wada hadalnay dhibkaygii sidii saxda ahayd waxaan isla tagnay inaan maaragtay saxadeys ku soo maaragtay xaaladdu ku soo xumaatay marka waxa ku doortay qurux baan ka raadinay laakiin ku qasaaray marka dhakhtarku wuxuu bilaabay dawooyin iyo stage fiican oo maaragtay aan recovery ku sameyn karo oo regeneration ay sameynayo sidii aan dib ugu soo laabtay roughly 9 sano ama 8 sano malena 8 sano ee ka soo wareegay iyo maanta maalinta 8 sano ka hor iyo maanta maalintaasaan waxaan ahaa qof weyn oo ayeeyo u eg hadda markaan bilaabay inaan skinkayga kargareeyana waxaan noqday qof regeneration kii la sheegayaba dhaxda ka dagay marka traininaan bilaabay isla markaan fiicnaadaan arkay inaan fiicanahay baan waxaan bilaabay in fildigayga caafimaadka aan u raro horumarinta quruxda dabiiciga ee maqaarka si loo helo dad badan oo ka badbaada yani waxyaabahan ani igu dhacay marka baahidaas ay igu kaliftay inaan ka shaqeeyo laakiin waxaan garanayaa gabar aan 3 jeer in ka badan malaha aan regeneration u sameeyay oo still inay cadaato rabto waa guurso cadaanaysa 2 sano kadib intaan ku dhex jiray 2 sano kadib markay sanad sugtay sanad dabiicigeeda ahaato oo jirkeedu u soo wada laabto awoodii ay hesho daway bilaabaysa maalmaha ugu hore quruxeena qoray way soo dhaweynaysa haddana beesheedii maaragtay markay jirkeedii is cuno meesheedii ka bilaabay haddana way imaanaysaa regeneration isku sameynay dib isbeenaysiin isku sameynay barteedii tagay haddana waa kana marka waxa yaabaha aan la yaabo waxay tahay dad og meeshan waxa ka horeeya inay maaragtay wax qasaare ah yihiin haddana is cadeynaayo oo wali maaragtay inay is dhibaateeyaan diyaar u ah 20 jir meel walba maqaar ka lusho oo haddana qaraxsan yahay bal ka wada oo haddana guur diyaar u ah oo u diiday inay guursato jirkeeda oo saas dartiis qof waliba quruxda wuu jecel yahay laakiin wayga loo raadinayaa kala duwan qof walba oo bini aadan ah ama rag ahaada ama dumar ha ahaada inuu ahaado qof muuqaalkiisu aad u qurux badan oo aan daruuf iyo diif iyo maaragtay bahdil aan ka muuqanayn qof walba rabaa
haddaad rabto inaad sidaas u qurux badnaatid oo muuqaalkaagu inuusan isdhimin quruxda kaliya cadaanta ma aha inaad caddahay macnaheedu ma aha inaad qurux badan tahay quruxda waa inaad hesho isku dheelitirnaanta maqaarkaaga caafimaadkaaga hadduu fiican yahay vitaminskaaga iyo aad ka warhaysid cuntadaadana inay isku dheelitirnaanta haddaad ogtahay biyaha qaadanaysid hadday maaragtay aad ogtahay maalintii inta biyo lagaa rabo ee qaadatay wad qurux badnaanaysaa